بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بما هسكله تبارك وتعالى استغانا ويديسانينا توفيق ده ينو وحي خيرنا وافجيو تليفوننا naga dabiyo wash ku sawiraysan khayr Allah fadhigeena caawa sidii hore loo ilaamiyay wuxuu ku saabsan yahay ama cinwaankiisu uu yahay kashfu al-qinaa' عن حقيقة جماعة الصادعون بالحق. وعدين لعدين يو أمداها لقفيد يو كوحدة لبحذي الصادعون بالحق. سيدا نقصونا هيبة لو ضصعنا مالماهم دنباء براها bulshadu ku kulanto waxa ku soo kordhay koox magaca la baxday as-saadi'una bil haqq oo isticlaamiyay afartii bishii Rajab 1438 oo waafaqsan labadii bisha Abriil 2017. kooxdaasi diiniga ama ururkaasi iclaankiisu wuxuu ka baxay Masar. waxaa iclaamiyay oo laba bayaan oo isdaba yaala akhriyay ninka amiirka u ah ururkaas ama jamaacada oo ay magaciisa ku sheegeen Mustafa Kamil Ahmed. kadibna waxaa ka dambeeyay in bayaanaadkii lagu turjumo luqadda Soomaaliga oo ay kooxo ururka ka tirsan inay ka istaagaan oo social media ka soo galaan magaalooyinka Soomaalida sida magaalada Muqdisho Garowe iyo Hargeysa. kooxahaas oo sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururkaas xubno ka yihiin beecana kula jiraan wadaadka aan sheegnay Mustafa Kamil Ahmed. dadka iyo ummadana ay ugu yeedhayaan ururka in laga mid noqdo ummadda Soomaaliyeed ay ugu baaqayaan. keligood ma aha meelo kale oo badanna sidoo kale kooxo yar oo sidaas oo kale ah ayaa iyaguna sidaa isu iclaamiyay ama sheegtay inay ururka ka tirsan yihiin sida Liibiya oo kale khaliijka meelo ka mid ah wahaakada. waxaan shaki ku jirin arrintaasi inay tahay arrin munasaq ah oo wax la isla ogyahay oo in wadaadkuna bayaanka akhriyo meelo kala gedisanna markaa taageero laga muujiyo kooxo yar ah waa arrin tamwiih baa ku jira, bimacnaa in la muujiyo oo dadka loo muujiyo ururku inuu yahay urur ballaadhan oo urur caalami ah oo jinsiyad kala gedisan leh oo meelo walba jooga. tamwiih noocaas loogu talagalay in meelo kala gedisan laga hadlo oo ay ka sheegtaan inay ururka ka tirsan yihiin. waa aafo soo kordhay ama horey u jirtay oo muuqatay u baahan marka in la dul istaago. waagii hore hadduu wadaad iska hadlo ama kooxii wax sheegato wax urursan buu iska ahaan jiray, laakiin miidiyaha warbaahinta social mediaha ayaa hadda wuxuu ka dhigay adduunkii oo dhan hal tuulo oo nin walba badeecadiisa uu keensanayo suuqeeda. si fudud afkaartu u faafto la isu gaarsiiyo nin walbana uu wixiisa ku faafsado. sidii hore marka waa ka khatar badan tahay
taasina waxay u baahan tahay kolba wixii soo kordha in ummadda laga baraarujiyo oo si ayna u qaldamin oo in badan oo dhalinyaradeeda khaasatan ka mid ah iyagoo khayrdoon ah si aynan u kadsoomin oo aynan meelo khaldan ugu dhicin waxaan markaa dul istaagaynaa bal kooxdaas taariikh ahaan xagee ka soo jeeda waxaan ka hadli doonaa afkaartooda waxaynu tilmaami doonaa wadaadka amiirka u ah muxuu yahay waxaan tilmaami doonaa bayaanaadkii ay akhriyeen labadii bayaan ee kala dambeeyey maxaa ku qornaa maxaase diinta waafaqsan maxaanse waafaqsanayn ururkaas taariikh ahaan marka la yidhahdo fikirka waa xambaarsan yahay wuxuu dib lagu noqonaynaa qarnigii tegey ayaa waxaa sida la ogsoon yahay reer galbeedka ayaa caalamulislaami kusoo duulay bilaadda muslimiinta badankood ayuu qabsaday reer galbeedku qabsadeen oo gumaysteen khilaafadii muslimiinta khilaafa alcuthmaaniya ayaa ilqeeyeen oo meesha ka saareen waddamadii muslimiintana way wada qabsadeen inta badan kadib waxaa bilowday oo caalamulislaami ka bilowday xarakaadka lagu magacaabo alxarakaat altaxriiriya xarakaadkii gobonnimo doonka ama xornimo doonka oo la dagaalamay muxuu ahaayey gumaysigii reer galbeedka la dagaalamay muddo dagaalku markuu soconay reer galbeedku waxay ku qasbanaadeen inay waddamada ka baxaan laakiin waxay uga tageen meeshoodii oy xilkii iyo awooddii u dhiibeen kuwa iyaga la shaqeeyo dabadhilif u ah oo iyagu soo tababareen iyaga afkaartoodii wax badan oo ka mid a xambaarsan ayay u dhiibeen in badan oo ka mid ah waddamadii muslimiinta kadib caalamulislaami waxaa bilaabatay markii xaaladdu ay xumaatay waxaa bilowday xarakaad islaami ah dhaqdhaqaaqyo islaami ah mujtamacaad islaami ah oo bilaabay inay ka hortagaan ama waajahaan mushkilada haysato muslimiinta oo ay diintoodii dib ugu soo celiyaan islaaxiyaan ayagoo dareemay dhibaatadu meeshay ka timid asalkeedu inuu yahay diintoo laga fogaado saas daraaddeed ummadda in diinta lagu soo celiyo sidaana cisigeedii iyo karaamadeedii usoo noqoto xornimadeedii ula soo noqoto muxuu ahaayey xarakaadkaasaa bilowday xarakaadkaasi markay bilowdeen dariiqa ay marayaan oy u marayaan hadafka ay doonayaan inay xaqiijiyaan ayaa marka kala duwanaaday qoloba meel bay ka tustay qoloba meel bay ka tustay kama hadlaya hadda duruqdaa la maray iyo wasaa'ishaa la maray maxaa khaldanaa maxaa saxsanaa kee saxaa kee khaldanaa hadda kama hadlayo laakiin masale taariikhi ahaan aan u sardinayo ayib waxaa ka mid ahaa marka xarakada la yidhaahdo alikhwaan almuslimuun oo masar laga asaasay uu asaasay xasanulbanna xarakadaas alikhwaan almuslimuun oo ka mid ah xarakaadkii markaa kacay kuwii ugu horreeyey taqriiban ka mid ahayd waa laga horreeyey ayaa kadib waxaa bilaabatay in ay xoogga saaraan oo iyaga ka tusto diinta meesha laga soo galay iyo aafada meesha asalku ah waa xukumka waa dowladda iyo siyaasadda iyo garsoorka iyo xukumka sidaas daraaddeed waa inaan xoogga saarno sidii xukumka lagula wareegi lahaa sidaana diintii iyo dhaqankeedii iyo axkaamteedii iyo qawaaniinteedii iyo loo soo celin lahaa halkaasay iyagu xoogga saareen meeshaa waxaa timid marka inay isku dhacaan xoogaa kadib ay isku dhacaan ayagii iyo dowladdii masar ka dhisnayd khaasatan sittiinaadkii khamsiinaadkii ilaa waqtiyadaas bilowyadoodii inay isku dhacaan ayaga iyo dowladdii meesha ka dhisnayd ayib
asbaab fara badan baa keenaysay in ay xarakaadka islaamiga iyo dhaqdhaqaaqa islaamiga ay istaagaan oo fasaadka iyo fisqi ilhaad fara badan oo mujtamacaadka islaamiga ku soo kordhay baa jiray oo markaasi cid haba yaraatee dawladaha iyo andimada taaganna aynan dan ka lahayn in badan oo kamida ama ayba qaarkood taageeraya xarakaadkii markay istaageen waxa la bilaabay in lala dagaalamo oo loo arko in badan oo iyaga kamida inay u socdaan inay xilka ka qaataan inay kursiga kala wareegaan madaxdii markaa xilka haysa kadib waxa bilowday in la isku dhaco ninkii tabarta yaraa ayaa markaa wuxuu noqday mid la dilo iyo mid xabsiyada gala iyo mid carar xabsigii markii la galay ayaa waxa dhacday haddana si naxariis darra in loola dhaqmo oo garaacis hadday tahay koronto in lagu gubo hadday noqoto naxariis darro tacdiib fara badan in lagu sameeyo waxaa waqtigaa isaga marka bilowday oo iyadana markaa jirtay horeyna u jirtay baan dhihi lahaa dacfi khaasatan dadka da'yartay u badnaa dadkii xarakaadka galay aqoon darro fara badan oo dhanka diinta ana waa jirtay oo aqoon badan sida hadda muxuu ahay wax loo bartay oo diintii loo bartay ma jirin aqoon darro fara badan baa jirtay khaasatan usuushii salafka iyo kitaabka iyo sunnada iyo aad bay dadka ugu yareyd garashadeedu xaaladda iyada waxay keentay marka xarakadii ikhwaan muslimiinka markay dawladdii Jamaal Abdel Nasir isku dhaceen in marka xabsiyada la geliyo rag fara badan oo jamaacada kamid ah hoggaankeedii dhalinyaradeedii in xabsiyada lagu guro xabsiga gudihiisa iyo ciqaabtii ka jirtay iyo naxariis darradii iyo wixii lagu la dhaqmayay dadkaasi xabsiyada ku jiray dhalinyaraduna aqoontoodu iska yarto aqoon badan aysan lahayn xamaas badan oo diineedna ku taagan yahay ayaa marka waxay dhalisay inay timaado su'aalo ah maxaa la inoo dilayaa maxaa la inoo xidhayaa maxaa sidan la inoogu cadaabayaa kadib jawaabtu waxay noqotay diinta darteed kadib waxa soo baxday inay noqoto inay yiraahdaan dadkan sidan inoo galayay diin darteed inugu leeynaye inugu xidhahaye sidan ina yeelay ma muslim baa horta mise waa gaalo su'aashaas dhalatay dhalinyarada dhexdooda kadibna markii waxa soo booday fikradda haysa nimankani islaamba ma noqon karaan waa gaalo waa dawladdii nidaamkii iyo xukaamtii waa halkaas marka waxa ka dhalatay sujuunta dhexdooda iyo xabsiyada dhexdooda ayaa waxa ka abuurmay afkaarta iyo mabaadi'da kooxda marka dambe la bixi doonta jamaacatul muslimiin iyagu magacaas ay la bixeen laakiin caalamiyan iyo iclaamiyan waxa loo yaqaanaa jamaacatu takfiir wal hijra jamaacada dadka gaalaysa in mujtamacaadka laga hijroodo laga dhaxbaxana aaminsan magacaas ay iclaamiyan caan ku noqdeen laakiin iyagu waxay la bixeen magac la yiraahdo jamaacatul muslimiin waa dhalinyaradii xabsiyada ku jirtay asalkoodu ikhwaan muslimiin ka soo jeeday waa khaasatan 1965 markii xabsiyada ay galeen kadibna sanadkii ka dambeeyay la dilay Sayyid Qutb oo Jamaal Abdel Nasir iyo dawladdiisii ay dileen markaas ayaa fikirka buduurtiisa iyo ususkiisu taqriiban dhalinyarada in la barwaleeyo oo la bisleeyo laga niqaashaa bilaabatay yani xabsiyada dhexdooda sanadkii 1967 ayaa sirdoonka dawladda Masar ayaa dadkii xidhnaa dhalinyaradii xidhnay wadaadadii xidhnaa ayaa waxa laga dalbaday inay taageeraan dawladda Jamaal Abdel Nasir dawladda wadanka dhisan inay taageeraan markii laga dalbaday saddex qaybood bay u qaybsameen marka qaybay u qaybsameen qayb kamida markiiba way taageereen way ayideen nidaamkii jiray si xabsiyada ay uga baxaan shaqooyinkoodii ugu noqdaan sidaas ay yeeleen
qolada marka xabsiyada waa laga saaro oo la iska sidaa intoodii badnaa way iska aamuseen waa taageeraynaana mayna dhihin ma taageeraynana mayna dhihin shibba iska dhehen biictibaar inay iyagu xaalatul ikraah ku jiraan waa qasbannahay bay dhaheen sidaas daraaddeed way iska aamuseen qolo saddexaad oo dhalinyaro ahayd ayaa markaa soo jeedintii ahayd dowladda taageera ayaa ka hor yimid oo caariday waxay iclaamiyeen in madaxweynuhu gaal yahay iyagaa isku qanciyey nidaamkan waddanka ka dhisanna inuu gaal yahay kuwii xabsiyada kula jiray walaalahood ahaa ee dowladda taageeray xabsiyadana saa kaga baxayna ayagana waxay dhaheen waa gaalo way ku dareen iyagana islaamka way ka baxeen bay intaa keliya mayna ku gaabsanina waxay yidhaahdeen dowladda gaalada ah ninkii aan gaalaysiinina isaguna waa gaal dowladdaas sidaa dadka u gelaysa ninkii gaalnimadeeda ka shakiya ama gaalo ma ah yidhahdana isagaaba gaal isagana ku dara mujtamacii kalaa soo hadhay mujtamacuna waa gaal bay dhaheen sababtu maxay tahay lianna xukaamtan gaalada iyo nidaamkan gaalada gaalka ah ayay shucuubtu raalli ku yihiin oo taageersan yihiin sidaas daraaddeed shacabkuna waa gaalo soonkan iyo salaadan iyo waxay tukanayaanna wax anfacaya ma wax jira maaha fikirkaasi xagee buu ka dhashay wuxuu ka dhashay xabsiyada dhexdoodu ka dhashay dhalinyarada dhexdoodii uu ka abuuray fikirkaasi waa fikirka marka la baxay ama loo bartay markii dambe التكفير والهجرة la baxay waa magaca caanka ku noqday ayagu se waxay isu yaqaaneen jamaacatul muslimiin طيب fikradda iyadoo xabsiga gudaheedii iyo dhalinyaradaasi afkaarta qaadatay ama iska dhaadhicisay waxa ka ahaa injineerka ahaa afkaartaas oo yaani sujuuntii xabsiyada dhexdooda ku balwareeyay nin la dhihi jiray Sheekh Ali Ismaaciil oo ka baxay Azhar oo ay walaalo ahaayeen nin la dilay Sayyid Qutb oo la dhihi jiray Abdul Fattah Ismaaciil lix nin oo Sayyid Qutb la dilay ayuu walaalkii kamid ah ninkaas ay walaalo ahaayeen Sheekh Ali Ismaaciil waa ninka xabsiga dhalinyarada afkaartan marka ugu horeysay qaadanaya ninkii fikradan injineerka ka ahaa ee muhandiska ka ahaa ee balwaradeeda lahaa dhalinyaradana odayga u ahaa laakiin waxa dhacday fikradii waxoogaa kadib uu ka noqday dawladdu waa gaalo shacabku waa gaalo ninkan gaalaysiini waa gaal war waxaasi wax macquul ma fikradii waa isaga soo noqday waa ka tagay markuu ka laabtay ayaa fikradii iyo hogaankii xarakada waxa la wareegay dhalinyaradii iyo hogaankoodii waxa kala wareegay ninka caanka ah ee la yiraahdo Shukri Ahmed Mustafa ninka way ninka marka xarakada ku caanbaxay afkaartana marka dambe sii bisleeyay faafinteedana qaybli wax ka qaatay isaga ururkii la wareegay Abu Sa'ad baa la dhihi jiray dhalinyaradii ikhwaanu muslimiinka ka tirsanaa buu ahaa waxa la xidhay sanadkii 1965 baa la xidhay oo waxa loo xidhay inay jamaacada ikhwaanu muslimiin ka tirsan yihiin darteed baa loo xidhay waxa mulfit ah oo xusid mudan marka wiilkaasi uu xabsiga galayo afkaartan ururkana uu balwaraynayo cimrigiisu wuxuu jiray 23 sano u jiray u fiirsada 23 sano jira oo wiil dhalinyaro ah hadana aqoontiisu takhasus sharci ama ah intuu xabsiga ku jira soo socota ayuu wuxuu qaatay shahaadada jaamacadda wuxuuna ku takhasusay cilmiga beeraha waa dhalinyaraha ahaadee aqoontiisu aqoon sharciya baa علم بيرو كنت تخصصي مسائشة ووين هلست أنا وبالوريني طيب
sanadku markuu ahaa 1971 hijriga ayaa xabsiga laga soo daayay xabsiga marka laga soo daayay kadibna wuxuu bilaabay inuu dejiyo haykalka tandiimiga ee ay jamaacadu leedahay yaani qaab dhismeedka maamuleed ee ururku uu leeyahay buu markaa dejiyay طيب markaasa waxaa loola mubaayacooday oo ballan lala galay oo beeca lagula galay inuu amiirul mu'miniin maaha amiirul jamaaca kaliya ma kooxdan xabsiga ku jirtay saaxiibadii ururka xubnaha ka kaliya inuu amiir u yahay maaha laakiin waa amiirul mu'miniin dhowr wiilo xabsi ku jirana meesha ku haysta mu'miniinta dhan amiir buu yahay jamaacada inuu isagu hoggaankeeda yahay ayaa barka beeca lagula galay sanadka isaga ah muddo kadib adiga warka xabsigu haddana galay waa la soo daayay wixii buu watay waa sii faafiyay muddo kadib ayaa waxa lagu tuhmay waxa la dilay ninkii ahaa wasiirka awqaafka iyo arrimaha diinta ee Masar oo la dhihi jiray Sheekh Hussein al-Dhahabi ayaa la dilay si qarsoodiya loo dilay kadibna waxa lagu tuhmay inay iyagu dileen markaas maxkamad la saaray boqolaal kamida ururka xubnihiisa sanadku markuu ahaa 1977 miilaadiga ayaa 5 kamida hogaankii xarakada waxa lagu xukumay dil waxaana kamid ahaa ragaas Shukri Mustafa wiilkii yaraaye odayga uu ahaa xarakada yeeniraad Maahir Abdul Aziz Bakri kadibna waxa dil lagu fuliyay oo la dilay sanadkii bishii Maaris 30keedii 1978 ayaa waxa la dilay Shukri Mustafa iyo ragii xarakada hogaaminayay qiyaadaadkeeda ahayd ayay dawladda Masar leysay intaas markay dhacday kadib xarakadii iyo ururkii mabaadi'da rumaysnaa waa si sharxi doona mabaadi'doode waxay bilaabeen marka inay isqariyaan dawlad bay la dagaalameen gacada adagna waa lagu qabtay waxay bilaabeen marka kadib inay isqariyaan oo si qarsoodi ah ay dacwadoodii u wataan waxa kale bilaabeen inay afkaartooda banaanka u masaafuriyaan oo ay Masar ka saaraan oo caalamka intiisa kale loo kala diro ayagoo ka faa'iideysanaya dhalinyarada Masar iimaanaysa waxbarashada u iimaanaysa inay la xiriiraan si qarsoodi iyo khaas kadibna afkaarta ka dhaadhiciyaan khaasatan Masar xilliga waxay ahayd caalamul islaami inta badan Azhar iyo meelahaas cilmiga loo raasan jiray mowqic muhiim ay ku lahayd halkaas marka wixii yimaadaba kaga faa'iideysan jireen afkaarta si hoos intay uga dhaadhiciyaan ayaa marka caalamka la kala aadi jiray sidaas waxa ku faaftay afkaarta loo yaqaano at-takfir wal hijra asalkeeduna halkaas ay ka soo bilaabatay kadibna sidaas ay caalamka ugu faaftay طيب tawasi good Soomaalida aanu nimaadno marka inaga goormayna soo gaadhay fikradani xilliga ay deegaanada Soomaalida soo gashay waxoogaa khilaaf baa ka jira laakiin intaan arkay waxa loo badan yahay qarnigii tagay 70-diisii aakhirkeeda 78kii 77dii meelahaas in ay Soomaaliya soo gashay fikradani waxaana soo galiyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo Masar tagay qaar baa dhahaya afkaartana halka ka soo qaatay qaar waxay leeyihiin ma wadaad kale oo la yiraahdo Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud oo xarakatul ahli xaraka la dhihi jiro Soomaaliya Muqdisho marka ka jirtay oday ka ah ayaa Sacuudiga wuxuu kula kulmay niman Masaari ah oo fikradii xambaarsan bay meesha isku arkeen markaasay ku qanciyeen uu soo noqday isagoo fikradii xambaarsan markaasuu Muqdisho la yimid ma Masar baa dhalinyaro tagto ka keentay ma wadaadkaas keenay adiga xilliyadaasi ayay fikradu ku soo biirtay deegaamada Soomaalida khaasatan magaalada Muqdisho oo marka ahayd muxuu ahaayay meesha thiqalka uu yaalo ahayd kadib waxay bilowday fikradu inay ku faafto dhalinyarada Soomaalida oo xamaas badan marka qabay aad u xamaasaysna xamaasad diineed qabay ha ahaatee aqoon darro fara badan ay haysay oo aan diinta aqoon badan u lahayn waxa saacideeyay afkaartaasi inay faafto gaalaysiinta muslimiinta in la gaalaysiiyo
mujtamaca Soomaaliga waqtiga waxa saaciday inay ku faafto dhalinyaradu ay qaataan mowqifkii xukuumadii militariga ahayd ee wadanka ka dhisnayd xilligaas mowqifkii ay istaagtay iyo mumarasaadkeedii diinta ka horjeeday ayaa saacideeyay xamaas badanna geliyay dhalinyarada afkaartan inay faaftana qayb ka ah khaasatan markay soo saartay waxa loo yaqaano xeerka qoyska ama ahwaalu shakhsiya oo dhaxalkii ay faragelisay shariicadu dejisay oo ay ku dhawaaqday rag iyo dumarku inay sameeyeen oo ahkaamtii guurka iyo furitaanka ay faragelisay bal madaxii dawladdu uu bilaabay inuu ku jeesjeeso aayadihii dhaxalka wadciga noocaas oo kala markuu abuurmay qayb wuxuu ka noqday xamaas farabadan iyo caadifo farabadan dhalinyaradu inay qaadaan oo nidaamkan dhisan iyo mujtamaciisa iyo kulli iyo afkaartu meelahaas oo kale ku xurata طيب المهم culimadii markay afkaarta ka hortageen iyo qab dhaqanka qaldan ee nidaamkii markaa dhisnaa uu diinta kula dhaqmayay iyo isbedelka uu doonayo inuu diinta ku sameeyo mabaadi'deeda asaasiga ah markay culimadii ka hor yimaadeen oo yiraahdeen ma saxsana diinta lama bedeli karo nidaamkii shuuciga ahaa wuxuu noqday jawaabtiisu inuu culimadii ka dhigo wuxuu laayo iyo wuxuu xabsiyada geliyo oo muddooyin kala gedisan uu ku xukumo طيب طريق bay ahayd waa la yaqaanay sideedabana afkaarta quluwiga ee xadgudubka ku salaysan waxay dhalataa oo ka abuurantaa inta badan oo ku kortaa oo ku barbaartaa bi'aadka ay ka jirto iddihaadku ka jiro bi'aadka gaalnimada iyo fasaadka iyo fisqigu ku badan yahay mas'alada labaad marka labaadna muxuu ahay dadkii warwaxani ma saxsana yiri xabsi iyo dil iyo iddihaad iyo eriyid iyo dabagal iyo xaalada noocaas oo kala markay abuuranto waxa abuuranta xaalad la yiraahdo xaalad loo yaqaano raddad ficli la yiraahdo oo muxuu ahay iska celiya raddad ficligaasi waxay keenaysaa marka in iyaduna dhanka kale istaagto lan quluwigu dhala يعني wax weeyaan markii nidaamka iyo dawladaha iyo iyagu quluwi iyo xadgudub sameeyaan waxa dhalanaya tayaar dhanka kala oo isagana xadgudub ku salaysan oo ka soo horjeeda xalgudubkii marka wuxuu abuurmay iyo andimadan quluwiga xarakaadkan quluwiga ku salaysan arimahaas saacideeyay in ay dhalinyaradii Soomaalida dhexdeeda ku faafaan waxa dawr ku lahayo kaalin weyn ku lahaa sidoo kale in ay fikradu dhalinyarada dhexdeeda ku faafto aqoon yari jirtay saan horeba u tilmaanay oo kutubta khaasatan kutubtii salafka iyo kutubtii aymadu qoreen iyo usuusha muhiimka ee diinta iyo xaaladahan oo kale diintu qaabkay u cilaajisay aqoontaasi inta badan ma jirin waxa kale oo dawr muhiim ku lahaa afkaartaasi inay faafto kutub markaasi wadanka soo gaadhay oo rag ikhwan muslimiinka kamid ah ay qoreen khaasatan kutubtii Sayyid Qutb oo kale kutub waxay ahayd iطلاقaadkeeda iyo kalimaadka isticmaalayso iyo in badan oo kamida ay ka muuqato mujtamacaadkan gaalaysiintooda oo hadda kalimaad far badan oo arkayno ku isticmaalayaan bayaanaadkan hadda ay akhriyeen waa kalimaadkii kutubta ku qorayd waa kutubta marka Sayyid Qutb waqtiga wadanka soo gashay oo dhalinyaradu akhriyeen qayb bay ka ahayd afkaartan xagjirnimada ama quluwiga ah in ay wadanka ku faafto sida kitaabkiisi macaalim fi tariiq oo kale nahwa mujtamac islaami oo kale al-adala al-ijtimaaciya fi al-islam khasaa'is at-tasawwur al-islami kutubta akhrinteedu saameyn weyn bay lahayd iyo aqoon darrada muxuu ahaayay jirtay caamilka kale muhiimka wuxuu ahaa sidoo kale waxa muhiimadu waxay tahay markay afkaartaasi ay Soomaaliya soo gashay culimadii Soomaaliyeed way ka hortageen خاصة علماء سنة ولا واجهي ولا جهر تجي ولا رديي يعني وحوي كتبت السلف كرضوان الله عليهم يوحي لقى قرني يبقى لفافيي خاصة رجي كيمي جامعات كالسعودية وهو الريو الله ونحرست شعب القادر نور فارح شعب القادر قعمي iyo rag lamida ayaa markaasi aad uga hortagay afkaartaas dhalinyaro aad u fara badan ilaahay sabab uga dhigay inay ka badbaadiyaan
afkaartaasi muxuu ahaay takfiiriga ah ama quluwiga ah sidaasi ayay marka Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho ay afkaartu ku soo gaadhay sidaasana inta badan muxuu ahaay la sheega raggii la caasirayna taqriiban waa joogaan oo culimada iyo raggii xilliga dhalinyarada ahaa iyo rag kale oo odayaalaba way joogaan oo runtii waxa weeye mas'alo u baahan si fiican loo sajilo way kadib waxa dhacday dhalinyaradii Muqdisho qaatay fikirkan takfiirka oo mujtamacu inuu gaal yahay dawladuna gaalad ciddii aan gaalaysiinina ay gaala yihiin afkaartii nooca ahayd waxa dadkii qaatay dhalinyaradii ku qancay laba qaybood bay u qaybsameen aysan doonayeen inaynu soo gaadhno halkan waa laba qaybood bay u qaybsameen qayb waxa weeyaan waa qaybta la yiraahdo kooxda takfiirka ee muuqata ee calaniga in qarsooneen waana kooxda uu hogaamiyo ninka la yiraahdo Maxamuud Nuur Uthman Kennedy oo ah sheekha kooxdaas amiirkoodana ah muqarraraadkooda diin ahaan ay ka dhigtaana asagu u dajiyay sida kitaabkiisa duruus fi manhaj al-haraka kooxdaasi waxay noqotay koox ayadu waxa ay qabtay fikirkay qabto aan qarsanin iyaduna aan isqarinin xubnaheedana aan qarsanin meelo gooniyana isugu tagto isugu ururta waa kooxda aynu hadda takfiirka rasmiga u naqaano ee hadda xaruntooda ay tahay magaalada Qardho meelo fara badanna masaajid ku leh Soomaaliya kamid kooxdaasi waa takfiirka calaniga ah oo waxay qabaan mujtamacu inuu gaal yahay tabacan gaalaysiinta dawladda iyo muxuu ahaayay bay ku bilaabeen kadibna mujtamacay gaalaysiiyeen kadibna waxay gaalaysiiyeen muxuu ahaay culimadii kadibna ururadii islaamiga ahaa kulli waxaan ururkooda ahayn waa gaalo kooxdaasi waa koox muuqato iyadoo warkooda cadaystay oo banaanka yaala waa kooxda labaad waxay noqdeen niman iyaguna takfiir ah oo qaba inuu mujtamacu gaalo yahay waxaan iyaga ahayna inay gaalo yihiin laakiin way isqariyeen meesha qoladan kale waxooda ay muujisteen oo banaanka dhigteen ayagu way isqariyeen waxay isku qanciyeen haddaynu ismuujinno marxaladu ma saamaxaysee aynu isqarinno si qarsoodi aan waxeena ku wadanno kooxdaasi waa kooxda bahda wadaadadu ay u yaqaaneen ee caanka ku noqday magaca la yiraahdo takfiirul jaw magacaasi caanka Soomaalida dhexdeeda wadaadada bahda wadaadada aad u yaqaan dadka caamadii aad uga warhayaan kooxdaasi waxa la yiraahdaa oo lagu yaqaan takfiirul jawi baa la yiraahdaa waxa hogaamiye uu ahaa oo oday uu ahaa wadaadkan marka dhow sheegaynay Cabdulqaadir Sheekh Maxamuud dhalinyaro fara badan ama dhalinyaro koox ah ayaa afkaartiisii ku dhagtay oo takfiir wal hijradii Masar ee hadda ka soo sheekaynay manhajkoodii qaatay isqarinta inay isqariyaan oo muxuu ahaay ay dadka iska qariyaan isqarintaasi macnaheedu waxa weeye mujtamacan maadaama uu gaalo yahay dawladdiisuna gaalada mujtamacuna gaalo yahay wadaadadiisuna gaalo yihiin masaajidda ay ku tukanayaanna ay kanaa'iso kale yihiin masaajid ba ayna ahayn masjid diraar iyo wax la mid ay yihiin masaajid ba ayna ahayn mujtamacii nooca ahaa haddaynu waxeena muujisanno ma badbaadayno kumana dhex jiri karno waa gaalo see la yeelaa halkaas marka waxay noqdeen ayagiina inay kala baxaan qolo iyaga kamid oo kooxda kamid ah waxoogaa xaaladii baa ku xiriiriyantay duurkay galeen badaha inay ka malayga ka dabtaan bay bilaabeen ilaa hilibkii dadku waa xaraan oo weelkoodii waa xaraan oo waa gaalo mujtamaci oo lugma dhex jiri karo maxaan sameeynaa waa malay inoo raadiyo markaas waxay galeen inay xeebaha badda galaan oo meelaha malayga ka dabtaan oo meelaha malayga ku shiishaan oo halkaas calaf ka dhigtaan oo mujtamac ka dhaxarraan qoladii nooca ahayd qaar iyaga kamida noloshii adkayd ee cidhiidhiga ahayd way xamili waayeen
wax la xamili kar ma kadib taasa waxay sabab u noqotay inay fikirkii ka soo noqdaan oo dariiqa saxda ay manhajka saxda u soo noqdaan qaarna fikirkii bay wali ku sii dhaganaayeen laakiin waxoogaa adaygii bay ka yara bedeleeno mujtamaca aan ku dhex jirno laakiin aynu qalbi ahaan uga go'no waxa la yiraahdo al-uzla ash-shu'uriyya ana amul fasala ash-shu'uriyya adeer kama dhex bixi karno ma fududee laakiin inagoo ku dhex jirna qalbiga aan ka nacno qalbiga ka goyno marka wax weeyaan qolyahaas isqariyay hoosna ka wata muxuu ahaayay ka wata afkaartoodii ka faafinay oo dadka mid ula xidhiid saaxiibka u tag fikradda hoos ugu sheeg markuu ku qanco ururka ku soo dar haddana mid kale raadi midba mid ha raadiyo wahaakada dariiqaasay marka qaateen inay isqariyaan dadkan iska dhex galaan qoladani marka waxaan soo wadnay waxa weeyaan qoladan hadda is-iclaamisay ee aad maqlaysaan waa qaybtaa dambe ee takfiirka waay halkaa inaad ila soo gaadhaan baan taariikhda u soo akhrinay fikraddu xagee ka soo bilaabatay masar bay ka bilaabatay markay dawladda isku dhaceenna way isqarisay soomaaliya markay soo gashay oo iyadana la waajahayna qolo ismuujisay oo qardha iyo meeshaasi saldhig u yahay oo haddaba muuqatiya waxay u kala baxeen qolo isqarisay qoladii isqarisay way maanta waxay is iclaamiyeen marka qoladii isqarisay ayaa maanta waxay isku iclaamiyeen as-saadicuuna bilxaq muddada iyadee marka maqnaayeen ee 40 sano ku sheegan waa dul istaagi doonaaye xaggay jireen baa isweydiin leh su'aalma war 40 sano xageed ku maqnaydeen 40 sano dadkay ku dhex jireen laakiin waxay xoogga saareen waxa loo yaqaano majaalaadka yani adduunyada ganacsi saas daraadeed hanti fara badan bay leeyihiin waa urur hanti badan leh magaaladeena Nairobi waxaa jooga rag tujaar ah oo iyaga ka tirsan oo la yaqaano hanti badan leh ganacsi bay galeen qaar ka mid ah waxay galeen tacliinta maadiga ah injineeriyada caafimaadka muxuu ahay cilmiga beeraha muxuu ahay cilmiga dhaqaalaha halkaasay galeen saas daraadeed raggan hadda is-iclaamiyay Soomaalida ah ama iska iclaamiyay Hargeysa ama Muqdisho ama muxuu ahay meeshii la jiray Garow iska iclaamiyay waa rag la yaqaano waa raggii waaga hore xubnaha ka noqday ururkaas bay ku jireen oo la garanayay in badan oo iyaga kamid mid baa loo yaqaan ragga iyaga markaad fiiriso waa injineer waa ustaad jaamacadda wax ka dhiga waa ganacsade sharikada maamula halkaas ay ku maqnaayeen marka 40 sano 40 sano halkaas lagu maqnaa inta waxa u dheeray ninkii ay heli karaan oo la xiriiri karaan si hoos oo saaxiibnimo ah inay fikirka ugu qanciyaan oo isaga soo galiyaan waxaad ku garan kartaa inay sidaas tahay taqriiban 40 sano inaysan wax badan injaazinin waxa ku tusaya inta meesha ka soo baxday ee hadda ka soo baxday media ka soo baxday waa rag kontomeeyay iyo wixii ka weyn waay inkastoo in badan garka xireen haddana inta garku ku yaalo waa ama waa gadh muxuu ahay gadh cadde ama waa gadh case wax dhalinyaro ku arki maysid marka muddada iyada ah waxay ku maqnaayeen dhanka adduunyada waxaan marna ka dhex muuqanin nin caalim oo sharci ah nin caalim ah oo takhasus u leh aqoonta shariicada maxaa yeelay waaga ay takfiirka qaadeenba kutubta yararka inay akhriyaan mooye waxbarashadii diiniga ahayd inay sii kordhisaan oo culimo noqdaan waa ka leexdeen waana afkaarta inta badan lagu yaqaan dadka sida lagu yaqaan way dadka afkaarta quluubiga ku dhaca macna marxaladaasi marka waxay rumaysnaayeen inay tahay marxalo qarsoodi ah oo u dhiganta marxaladii ugu horeysay dacwada nabigu bilaabatay oo marxala sirriya ah marxaladaasi markii laga gudbana qaabka iyagu wax u tartiibsadeen waxa ku xigta marxaladii nabiga la yiri sallallahu alayhi wasallam fasda' bima tu'mar marka waxay isku qanciyeen
marxaladii sirrigeed waynu soo dhaafnay hadda waxaynu soo gaadhnay marxaladii fasdac bima tu'mar nabi maxamed oo wixii lagu amray banaanka dhig muuji sidaas daraadood magacooda aad ka garanaysaan waxay la baxeen as-saadi'uuna bil haqq fasdac bima tu'mar marxaladaasaan soo gaadhnay way marxalada laabanitee way marxalatul idni bil qitaal baa laaban marka waynoo soo socotaa waa tilmaami doonaa marxaladii loo fasixi lahaa dagaalama oo dadka laaya oo xagee ka bilaabayaan markaa qaatilu alladina yaluunakum min al-kuffar kuwa idinku xigee gaalada ah ku bilaaba xagee ka bilaabayaan marka ma Mareykan iyo Ruushya waxay aadayaan baash maya gaalka ugu dhaweey xigee waa adiga ay ka bilo marxalada marka waa la sugaay laakiin marxalada hadda ay soo gaadheen falsafadoodii edabiyaadkooda marka la fiiriyo waa marxalada fasdac bima tu'mar qaabkaasay marka wax u tartiibsadeen su'aal waxa la isweydiin karayaa labada kooxood oo midna ismuujisay oo maxamuud nuur Uthman uu hogaamiyo iyo kooxdan isqarisay maxaa u dhaxeeyay manhajka marka la yiraahdo xaqiiqa ahaan wax farqi weyn uma dhaxeeyo laakiin kaliya waxa isku faariqa muhiimka wuxuu yahay maraaxisha la marayo iyo qaabka loola mucaamaloonayo qoladaasi maxamuud nuur waxay isku qanciyeen marxalada aan marnaba marxaladii kufu aydiyakum baan ku jirnaa oo marxaladii dagaalka wali leenooma idmin ayaga laftooda marxaladaasi maraya laakiin waxay isku qanciyeen diinta wixii aynu hadda ku dhaqmi karnaa ku dhaqanno dumarkaan xijaabno masaajid aynu dhisanno aynu gooni isu ururino mujtamac muslim ah oo mu'min ah aynu gooni u samaysanno waxeenan ayna qarsanin qoladaasi sidaas way qoladana waa ka duwanayeen marka isqarinta iyo diintii oo dhaqankeedii iyo muuqaalkii wadaadnimo oo laga cararo muuqaalka wadaadnimo yaan lagu garanin dadka isaga dhex jira waxa la yaab hadda markay ismuujiyeen ayaa Soomaalida kommentiyada ay ka bixinayaan qaar kamid ah marka akhrid wuxuu leeyahay mid baa wuxuu leeyahay waa la yaabe hebelkani aniga macallin buu ii ah intaasoo sano macallin ii ah waxana kama badareeminba qolo shirkada waxay leedahay war mid kana wax u dhiibanay waan faslinay lama ba ogeyn qolo jamciyad bay u dhiibteen mid hadduu is sheegay oo macnaha la fasliyay marka yaani wax weeyaan isqarinta inay isqariyaan dadka dhexdiisana ka ugaarsadaan ayaa iyaga mabda u ah diinta inteedii kalena markay uu dawlad dhalato hal la raadiyo laakiin marka hore koox yaroo istarbiyaysa waa inuu asaas ku noqdo sidaasi markii laga tago furuuq fara badan oo u dhaxayso mabda'i ama jirto maxaa yeelay waxa ka dhaxeeya mabaadiida waaweyn aan tilmaami doono inta badan way ka dhaxaysaa saan soo tilmaanay maraaxishaasay marayaan marxalad makiyo sirriya ah marxalada xigto fasdac bima tu'mar marxalatu sadci oo hadda ay rumaysan inay marayaan marxalada saddexaad oo ah marxalada dagaalka loo idmi doono oo ay dagaalka bilaabi doonaan waana marxalada bayaanka sida ku timid oo tilmaamaya bayaanka naska ku yimid u fiirsada wuxuu yiri markuu soo tilmaamay inaysan ducaatu cunfin ahayn ururadan dagaalamaya ee wax burburinaya ee wax qarxinaya manhim bay dheh maxaa yeelay annaga waxaana la amray inaan gacmaha laabno kufu aydiyakum gacmaha laabana la amray buu markuu soo tilmaamay kadib baa wuxuu yiri walaysa hada isqaatan lil jihad fi al-islam ولا للقتال في سبيل الله ولكن كل شيء لكل شيء حين ولكل مرحلة حكمها والله لم يأمرنا بذلك إلا حين تكون لنا دولة كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مركان لنا هاي أنه وحما قربضنه وحنا ما قرحنه ضد كان مالله إنه ديقود ما بنيسان سيدا أردا سوكالي تا معناheedu ma aha buu yiri inaan jihaadkii diidana qitaalkii jidka ilaahay lagu dagaalami lahaana inaan inkirino diidanahay ma laakiin wax weeyaan shay walba waqti gu leeyahay marxalad wadbana xukumkeeda khaaska ay leedahay allana nama amrin arinta oo inaan dagaalano jihaadna illa markii aan dawlad helo mooyee sidii nabiguba ahaa salawaatu rabbi wasalaam marka maxay sugayaan inay dawladii u dhalato kadibna dawladdii Madiina oo kale inay dhalato kadibna dagaalkii la bilaabo
maraaxiishaasay marka wax ugu tartiibsan yihiin waxay noogu xigtay inaynu tilmaano sidoo kale afkaarta itijahaadka noocaas isku dar kuwa Masar ka bilowday ka Soomaaliya u soo gudbay labadiisa qaybood ee kala jabay afkaar ahaan maxay rumaysan yihiin waxay radaan dul maro cunsurka asaasiga afkaartoodu wax weeyaan in ay gaalaysiiyaan waxaan iyaga ahayn wixii aan iyaga ahayn oon ururka ka tirsanayn oon ku abtirsanin inuu gaal yahay waxayna ka bilaabeen inay xukaamtii madaxda gaalaysiiyaan lianna diinta ilaahay waxaan ahayn bay xukumayaan cala al-itlaaq ayagoon tafsiil ku samayn kadibna inay dadka la xukumayo iyo shacabka gaalaysiiyaan iyagoo leh xukumka gaalnimada ee dawladuhu ku dhaqmayaan iyo qawaaniinta wadciga ah bay raali ku yihiin shucuubtu waanu tagi doonaa naska hadalkiisa bayaanka ku yimi shucuubtu waxay gaala ku yihiin waxay raali ku noqdeen axkaamta iyo qawaaniinta wadciga ee dawladuhu xukumayaan sidaasay shucuubtuna gaala ku noqdeen طيب maxaa xiga culimadiina waa gaaloobeen bay dhaheen oo iyaguna maxay ugu gaaloobeen lianna dawladda gaalada ka wada iyo shacabkan gaalada bay xukumi waayeen oo ay gaalaysiin waayeen waa waxa loo yaqaan haddaad garanaysaan at-takfir bitasalsul waana meesha wax ka bilaabatay dawladda lagu bilaabiyo madaxda dawladda markay ka bilaabatay kadib shacabka loo soo degi oo isagana lagu xukumi calashan raali buu ku yahay waxan shacabkii markii laga soo gudbana waxaa lagu dari dadka aan xukumkooda ku waafaqsanayn oo gaalaysiinta shacabka aan ku waafaqsanayn culimaha noqdeen ama ururo islaami ha noqdeen kuwaas la raacinaya وهكذا قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر بالمرينا مرك الكاسوة طيب وحاكم إذا أصول شوضة يا مبادئ ذو كم إذا عد كستو أي فكرة ذو أوبندجان أون أقبلين أما أنتو فكرة دي فكرة ذو أقبل أن أروك كم من نقنين أون إمام كودا بيعلق لي وقال أداد ما أنت لنلتها قلنا وروحني صح معه وشريعة إلهي إن له حكمه واجب وأنظمتنا دولتها وحي حكومة يار مصح سنة وين دين إلهي الله نقضه ومجتمعات كبار الروتشينيس وتوحيد كأتصحيس هذا أمر كودا كم من نقنين وهذا أمير كودا بيعلق للقلبات طيب كذلك عدي أرك كم من نقط وأرك كودا ديب وقبح هذا أسونا وقال مرتدى ururada quluwiga asaasay ka sameeyeen Soomaaliya kuwan hubaysan xataa Soomaaliya hadaad ururkooda intaad gasho aad ka baxdo way ku dilayaan marka xataa hadaad gasho kama bixi kartid jamaacadka islaamiga iyo ururada islaamiga ayaga agtooda sidoo kale waa gaalo waa u tagi doonaa hadal bayaanka ku yimid oo meeshaasi mulaaxadaynu ka bixin doonaa insha Allah ta'ala waxa kale qabaan ururada noocan afkaartooda kamid ah kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga ayaa xujaa kaliya طيب sunnada lafteeda ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam inta iyaga hawadooda iyo fikirkooda ay isleeyihiin way waafaqsan tahay bay ka qaadanayaan inta fikirkooda way ka soo horjeedaa ay isleeyihiin ahadiista kamidana macnaheeda ay leexinayaan haday daciifin karaan waa daciifinayaan ahadiista inta hawadooda waafaqday ka qaadanayaan nusuusti quraanka iyo sunnadana waa xasab iyagu tafsiirkiisa u fahmaan sidaas daraadeed cid kasta oo aimada iyo culimada aqwaashooda ama ijmaaca qaata saxaabada ama qiyaaska daliishada ama maslaha al-mursala ama istihsaanka ama qowlu saxaabi adilladii mukhtalafka ahayd ayaga agtooda muctabar kama bal qaar kamid waxay qabaan inuu gaali inuu yani gaalnimo ay keenayso waxa kamid afkaartooda أقواش أهل العلم محققين تأه إيو تراثكي يبحلكي أي علماء كتجين إلى الصحابة إلى مانت أو تفسير له أو شرح أحاديث له أو أصول له أو مصطلح له أو فقه له وحي علماء إنه كتجين أكتوض وحقيمة كمله وحقيمها لوحويان نص كم بين لا تعامليان أمير كودو سيدو أفسراء بين علماء معاملونيان وشيء غريب أمير كودا بعد تفسير كإسكال ما خلافي كران هذا قليهن أحريسا محمد عثمان أحريس قرناء مالان أحريس كتبت أي أخريان
وإساقو كو قري مقررات كيسي إساقو قري أيا كتبوا من خلاف كران كون نسيدو كلوا أمير كودا وحي كي ماذا كتبتو أوتي المملكة وحي كبعثا كتبتي أئمة إيه خدمة دي عقيلة هيد وحك استلاهي أكتوض وحك سوقات مالي سيداس درادي داود حدريمي كرتان ووتاقي دوناي بيان كآد أركتين والله وضع قيبوت هل قول وإمام مسلم أوليه كمين سوقاتنا هل قول أساقوا لي بمكرر هذا الفربضان صور نقلقونا هيو فربضان بإساقيتشر هذا مع ذلك هل هذا ونين عالم ليه هي يسوق جوريان كمتشر بالله وضع بيان لأن وحويان أئمة يا علماء أقواش هذه التفسير كذا يا شرح هذا أكتوذ وزن وين كمله يعني وحوى مبادئ ذو ذاك مبدأ أقوم وأبدأ أقوم يسوي حكم ذا وعنصر كاللبادة إن لقيه جرودو مجتمعاتك ما دام يقاليهين مجتمع جاهلي هاي إن لقيه جرودو طيب عزلة داسي أما عزلة مكانية هالنقطة ميل لقى آذو وكله هالهلو أما عزلة الشعورية هالنقطة محوها هاي قلبك إن آت كجوض وآت كجنحبها بأنه عاصو كلا هدي أي هلي كرانا ويسمى سيدا هذا قليها قاركو ذا كل شيء وحكم ذا سلدي تدرجك وأين صومرني أنت سوى مركا مبادئ إيه أفكار تأرردني أي رميسيين أصل كيدون ماشي كسب بالله كبزوا باللابتي أنصو شرحنا جماعة مركا الصادعون بالحق لبح ذي تاريخهان دبجلس كود وهالكاسو قلاء الكاسين كسو جدا iyaga markaynu u nimaadno bayaanaadkoodan iyo amiirkoodan aan ka bilowno amiirkooda Mustafa Kamil Muhammad Hassan oo bayaanka labada bayaan ba akhriyay walaadkaasi siiradiisa daatiga iyo taariikh nololeedkiisa waxay leeyihiin wuxuu ku dhashay magaalada Qaahira 1936 uu dhashay طيب وميلادك ومعلم كان نقضي جامعة القرى ومكة كتال شني لواتن سنة أي معلم كهب عليه هاي كلية دليل هذا كلية الدعوة وصول الدين تاريخ دي سمر كل شيء دبقلو وذاتك شيخ مصطفى وحكود درمضي جماعة الإخوان المسلمين مصر أيوه حكود درمضي وكم من نقضي حبين كم من النقضي سنة كي كن سجال بقول كنتن إيالبادي ميلادي حبين رسمية وكم من إخوان المسلمين كنا عمري جيسونا مركا وحود شيء لحية 8 سنة لحية 8 شربوها مركا يدا سنة كيكون سجال بقول يكونتن يشنتي أيا وحلو حكومي 8 سنة حرقة قاهرة طيب حبسك أيوه كل مي سيد قطب كون سجال بقول لحدن يلبادي أيوه كل حبسك كل مي سجني حبس اللي هذا مزرعة الطر اللي هذا هل كاسو كل مي وحكا قاتي أرضي النقضي وللمعلومية سيد قطب ما أهين نين عالم شرعي لكن وحو أها نين أديب أو كصنفا قيوان هذا مفكرين تليلا طيب سان صوت المعنى كتب ربنا وقرينا عبارات كذا يوحو كو قري قيب بدن بي كان نقطي أفكارتا ضد بدني أي قاتين oo ku salaysan mujtamacaadka muslimka ah iyo waxa ay yihiin wadaadkeenan Mustafa Kamil wala soo daayay markaa kadib xabsiga markuu Sayyid Qutb kala kulmay arday ugu noqday kadib say sheegayaan mar kale hadana la xidhay 1965 uu hadana mar labaad xabsiga galay 7 sano ayuu hadana ayaa lagu xukumay xabsiga wuxuu ka soo baxay 1971 ميلادي طيب وذاتك أرورك هذا إعلان كيس كل واقعي ونكا مع المشاكل فهني ورجي حبسك
marka fikradda takfiirka iyo hijradu xabsiga Masar markii fikraddu ay ka abuurmayso ka bilaabanayso iyo raggii ruwaada fikradda ahaa xilligaas uu ku aadan yahay xabsigana kula jiray طيب sida uu sheegayo ururka wuxuu asaasay muasisiintiisu kamid yahay 1973 ururkan hada la iclaamiyay as-saadi'una bil haqq bay ayay aaseen intaasi waxa weeyaan waa wadaadka ururka amiirka u ah labada bayaan akhriyay waxa mulaaxad ah oo aan yara mulaaxaday iyo cajabiyay la yaab ila noqday wadaadku 25 sano buu kulliyatu ad-da'wa usul ad-din ma kulliyatu ad-da'wa jamaat al-qura ayu macallinka ahaba ku qoran sida la sheegay laakiin markuu bayaanka akhrinayo waxyaalahan mulaaxadeeye waxa kamida arabiyada xataa akhrinteeda ma saxayo وهذا غريب عربية نيك اللغة العربية يقانا هي حركات كلماتك وذاتك حتى حركات كلماتك حركين توديبو إن بدنو كم إذا كنت منايا وراق للصوق قريب ونكا آخرنا يا أغو ارتجال ما نينكو مركو اللغة العربية أسوون ميلك آخرين إنو محو السرچوغا كتورة هيو والله قرابي موقتها هذا وحكا خلق الضمان لكن نين وراق أخرين حتى وراق ذا مركو أخرين ينسك أو أخرين يو شاشة كالصوبح يو حركيسين إلى أمريكا ما قال مشاشة يكون حركيون وذاتك وما حركيسنا مياه مسوا حركيسين وحركة دي بقلضي ماشا وحا كم وقتا يقوم موقض إنه يهي نين عالم شرعي وحيالها تاقيرا ينا وحا كم ذا سيرة دي سمركي كهلين ذاتك عدو علمي كقاتي عدو شيخ النقطي يمشوا كسو تشيدو من لما شيء وحلقة بالله بيون إخوان المسلمين بوحبين كاهاي حبسي بوقلائيو هل كاس لقى بالله وحي كتر شميسا ورردن آفات كهيستا وحويان وحا مجرها أقبانيا ضد كاللومينيا هذا أنت كتوريا ودد أن أقون شرعي على هين علمنا أن كسي فايسنين تكفير كي هجرة باللوج يدين ويل كي يراي مصطفى الشكري باب الله وكلية محوها هي كصوب حي يا كلية الزراعة هي كلية دبيرها كصوب حي أقون شرعي أنا الله هين هدنا الصادعون بالحق أيها مركات في رجل قرحير كأه محوها هاي ساعدوا في سنة Soomaalidu rag badan bay ka taqaanaa oo wadaadadii bahda wadaadadu yaqaanaanay hal nin oo caalim sharciya kuma jiro su'aal badan markay is weydiin kartaa wareed wardiintan culima ilaahay ku badbaadiyay caamay goormu diin badbaadina uma badbaadin su'aal is weydiin lama waa su'aal muhiim ah caamay isaga badbaado u baahan yaa injineer baan ahay macallin jaamacadeed baan ahay dhakhtar baan ahay cilmi ma وعلمي الدنيا ودنك نافعة لكن علمي الشريعة أمد اللي جوب بدبادين لها ما هكذا سيدو مدو بدبادين يسامرك أضاف وبهن لو بدبادين أفدها يستقر الرضا أنت بدن غلوجي حد جدو كجلاي أفدوا ذو يو أمراض وجو أساسنا هيستاسا كمان طيب أنت هدانك سو جذبه أنا وما دمرك بيانك لوضع بيانك للدنبية وذاتك أخريان ربائنا الملاحظات صار مرك أفكارتا هذا عن صوت شيقني أروركم مكتنا زلي موحبا إسكبدلي مثل وحبا إسكبدلين محي سوكر ليين محا بيانك كوقران عن استلتاق بيانك مركز أخريد لوضع بيان بأخريده ومباهنيد إنا آدوغو فيرسطو إلى أيكو صبحان ملاحظات منهجئة انحرافات عقدية إيوه ملاحظات كلو فربضان ويقوه الرئيس التناقضات يقوه الرئيس بيانك يركي كوبان واسكهر إيمانيا يا إنو اسكهر يمادنا وحاكينا يا أقوان درى القسلي جهلي بقسلي سين أدان مثلا وحكا سوقاتو اسكهر إيماتك كوشيراي دور قضب كسوقاتو مكوبي كريم بيانك وحاك أي كوب الله بيان
إن أيهين كوح مسلمين تكمد وفيرصدا نحن وحيلي نعلن للجميع أننا جماعة من المسلمين ضد كذا وحنو إعلامنا إن أنها كوح مسلمين تكمد طيب بيان كلوات سيدو كلا نحن جماعة من المسلمين لله سبحانه وتعالى كوح مسلمين تإلهي كان سنكمد أنها ماشا محاكم مغدمرك إن مسلمين كالتيران صوما وإن إيجا كليجيد مسلمين تأهينا مسلمين كالتيران صوصاص ما طيب markay u yimaadeen asbaabta keentay inay ururkan sameeyaan oo ku dhawaaqaan asbaabta ku kaliftay markay sheegayeen halka markay marayeen ururkooda waxay ka dhigeen ururkii muslimiinta ma aha urur muslimiinta kamida ma ururkii muslimiinta jamaacatul muslimiin bay iska dhigeen maxaa daliil ah waxa daliil ah wuxuu leeyahay صوبت أورك أساسين مركو شيء انطلاقا من فهمنا لحقيقة التوحيد وإدراكنا للواقع الذي تعيشه البشرية بجملتها اليوم وإيماننا بواجب ومسؤولية كل من آمن بهذا الدين في العمل على إقامة الإسلام من جديد والتزاما بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل حينما قام الجماعة المسلمة الأولى واستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يعني وحوليه هاي وحان كدو لينا وحان أجيبنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يكوح مسلمات إن للصه أوامر تنفريسة النبي كسوغان أيانو كدو لينا أنه تاكدو لينا أحاديث تاسي محيط هاي أحاديث تاسي لبا حديث بوكاني حديث وحديث ابن خزيمة ابن حبان يسوع صار النبي صلى الله عليه وسلم أنا آمره وأنا آمركم بخمس شن شيبان إذا أمر يا النبي صلى الله عليه وسلم شن تاشين إلهي باقي أمري وحان إذن أمر يا آمركم بالجماعة والسمع والطاعة وحان إذن أمر يا إن الجماعة لازمتان إن مقشان رضيشان والهجرة والجهاد في سبيل الله إن هجرتان وجدك إلهي كجهادان بان إذن أمر يا فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر نيكي جماعة وحير كدحبها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إسلام كمريكتي سيلقنتي سوكسيبي إلا أن يرجع إنه كسون نقدمه حديث كاسو كان ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم حديث كاسو كان حديث كاللباد نوحو يري هي حديث كاللباد المسلم وريي من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية روحي لنتا أساقو لقنتي سبيعة كتير أو أنبالان كوريتشيرين أمير جماعة يوكودا أنبالان كتيرين روحي سيدا كورينتا قابك أو أردنتي وقابك جاهلية أردن شرتوا لبدا حديث أنه كدولين انطلاقا من ذلك كله انتصر أنه كدولين كان لزاما علينا أن نقيم جماعة أي وحا لازم نقول نقضي إن استاجنوا جماعة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جماعة سوق ريسة شهادتينك بمدلولها الصحيح معنى هذا الصح أنا كوكريس طيب سؤال شو حيتمر مركي هو واحد جماعة مسلمين تكمدانا نصوصا إليه وحان أعسكن جماعة هذا أساسي ديدو ما جماعة مسلمين تكمدا كوح مسلمين تكمدا مياه إسكالي نصوصا مسوحة إسكالي جماعة نظام كأ مسلمين تمتشاء الدولة أبا إسكالي هاو إذا يرضي ضلوة العلم مركو النبي يقول لي هاي آمركم بالجماعة أي جماعة جماعة المسلمين هو قال سياسة لي دولة ديوان طيب مركو النبي يقول صلى الله عليه وسلم ومن مات وليس في عنقه بيعة من؟ يا بيعة أمير المسلمين مدح المسلمين ده بيعة سأل قال لي بيعة أمير أرورما كوح أمير كده
بيعدي سما بدليل أديك هذا أرور كودا بيعدي سآدن قليل وصاع كل مات ما ميت الجاهلية دماني الجاهلية ما تقولي ما مركز جماعة المسلمين بان كم منها هذا النصوص تي جماعة المسلمين تكلي جيده بعدد إسكاله مدحه قامين هي الدولة ده أحاديث تدي بان كسلين نيون كأمر قادر نيون أركنا كل سنة هذا الكافية كلا ديروا استثار معلن أو ألف وحبولي يوحمل الله بدأ الله لقام صوارت وتناقض مروح يسوس صورين جماعة المسلمين مرنا وحي شيئا يعني نيهين جماعة من المسلمين طيب وحاحكتين تنان هلكا كبه أحاديث تاس ماشا يكوف السيرين يماشا يسارين وقلط وانا التحريف أحاديث النبي قال له صلى الله عليه وسلم النبي قال صلوات ربي والسلام عليه كوح مسلمين تكمدا أو أرر أو أن أميروية أو هجامين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا متشهدين إنه سنقول تشهدين لو حكتوس أحاديث تيجا إسفسيرة يسه حديث في صحيح مسلم بكوي من إسلا حديث كأي دليل شدين إسلا حديث كأي دليل شدين صحيح مسلم بكوي لا لكنه في صدى سيد كوي نافع مولى ابن عمر أيا ابن عمر كورني وحليه عبد الله بن عمر أيا أيميد عبد الله بن مطيع عبد الله بن مطيعنا حل قاوي معنا يعني حين كان من أمر الحرة ما كان مدينة يدقال كذي حر مركو دعي ودقال وحوها فتنة أو ربضا ومقال هذا كدعي حل قاسوي زمن يزيد بن معاوية يزيد بن معاوية مركو حلك هي وأبيه معاوية أنتو أقتك حلك رضي الله تعالى عنه وحلك أقتك بالغو كعي ضدك كوكعي ري مدينة كمدها إذا مو سوق حيستوى كسو دولة مقالة المدينة دقال علوس باك دعي ولغو هوبتي تاسع وحلي وقعة الحر الله يقانا حلق السقعة أيا عبد الله بن عمر وحوي من عبد الله بن مطيع طيب مركز أوحي اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة عبد الله بن مطيع بعدها أبو عبد الرحمن وكوض عبد الله بن عمر بركين أصور دي قبول بركين بالله مركز أوحي كوي عبد الله بن عمر بعدها إني لم آتيك لأجلس أنوغو أما إيمانين إنام فريست درتت كوغو ما إيمانين بول محاضو تيمي أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله وحان كوغو إمد إنام كوشيغو حديث النبي محمد كما قال صلوات ربي وسلام عليه محوية حديث كاس وحيول النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية نبي بانك محمد بانك مقليب يقول سقوله ننكي مضحدا قعن كسيب وطاعة وذا كبحة إلهي وما لنت قيامة الله كل ما يسقون حجة لهين روحي لنت يسقون لقنتي سبيعة كتير وإمام كمسلمين تي مضح مسلمين تأم بيعة كتير وكوك عسن وحور لنت قابل بشا جاهلية عبد الله بن عمر محوكها الله يا مر يا ري مدينة محوك لها الله وهو حديث كوكان وحوك لها الله يا يزيد بن معاوية أو حلك مسلمين تهي هكوك حنا هكوب حنا هدات كوب حدان أحاديث ترى ابن قبصانيس بحديث هكب حنا جماعة دي مسلمين تي شركو دي هكلت شبيننا مدح محوها دولة دي النظام كهب محوها خلخلها قليلنا تاسو كلها الله حديثكم مركب باب كاسو كيمين روايات كيس كلا أما حديث تكلا عدين سو حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية ومجد خرج من السلطان شبرا ومدح المسلمين جماعة الله الله يتأيدوا جماعة وداد سميستما كوح وداد سميستما أرور اسمك عابي ما أمير كودي مدح وضنا ما أحاديث تاسي ماشى إلى آذين وميل قلالة وحقصي عد حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأبو داود طيالسي غير كيسو سارين والنبي صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية إمام إيا مدح إيا النظام السجون هوست جوجين روحي لنتا لمشى جاهلي لنتا مركوا مدح المسلمين تي جماعة المسلمين أيوة محي يسكوا فسيرين وذات كودي كفسيرين الكاسي سارين حديث تأييدها وانا التناقض طيب
تناقض كاللباد وحويان يوركوض اسكهر إيماني جماعات إسلامية مركي كهالي والصحة تشوفت إيضاً موقف كأي كقبان وموقف اسكهر إيماني يبيان كلفتي سوكويا له وقتي قاعد يراضي أي إنه هلقا كتوشين حبين دم إن شاء الله تعالى إنه لما يستري لكن واحد إنه هيسان وأينو كو أفشرني تناقض كي كوبات كي لبادنا بلنتي سوينو هبين دم إن شاء الله تعالى هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم